nin gaala oo mulxida mushrik ayaa arday buu ka dhaadhicinayay baa la yidhi ardayduu ka dhaadhicinayay wixii la arko unbaa jira waxaan la arkin wax jira maaha ardaydan iskuulka u dhigeenayna inan yar laba muslimiina ku jirta laba muslimiin inta kale waa wada gaalo markaasuu ardaydii buu tuso wuxuu yidhi sabuuradda maad arkaysaan haa waan arkaynaa idan sabuuraddu way jirtaa buu yidhi marwaxadda ma u jeedaan haa waa u jeednaa idan way jirtaa qalinka ma u jeedaan haa waa u jeednaa idan qalinku waa jiraa sanabku caabuday buu soo dhigay meesha kan maad u jeedaan waa u jeednaa kanna waa jiraa markaasuu allah ma u jeedaan ma arkayno ma u jeedno idan wax jira maaha buu shaydaan arday muslima gacanta taagay arday macallin su'aal ma ku weydiiyaa ma weydiiyaa ardayda su'aal ha weydii su'aasha aday kugu socotaay ma ka xanaaqi ma kama xanaaqaya kaalay buu waa dimuqraadiya kaalay waddanku waa dimuqraadiya kaalay markaasuu yarkii baa su'aal wuxuu yidhi macallinkeenna caqligiisa ma u jeedaan maya uma jeedno idan ninkan wax jira maaha waa majnuun marfuuc alqalam buu yidhi haddana ruuxdiisa ma u jeedaan ruuxda ma u jeedaan ku jirta may ma u jeedno idan ruuxna kuma jirta waa mayd buu iskaga tega ninkan uu yaabay ninkii caqli waa qabaa buu yidhi caqli waa leeyahay caqli ma lihid baa lagu yidhi ardaydii baa ku tiri caqligaaga na tus oo na taabsii ardaydii gaalada ahayd ayaa waxay leeyihiin marwaxadda waana tustoo na taabsiisay sanabkaad caabudaysa waana tustoo na taabsiisay moobeelka waana tustoo na taabsiisay laakiin waxaadna tustaa caqligaaga na tus oo na taabsii ma tusi karaa yarkii yaraana muslimka waa isku daawanaya qosol u kala baxay labadoodii markaasu caqli waan leeyahay maxaa caqli ku garan inaad leedahay caqligu aniga inagu hortaagan waaniga dharka ku soo xidhay waaniga isku soo hagaajiyey saaka waaniga casharka iniigu dhigaaya waaniga dariiqa ku maraaya waxa ii fiican waxa ii xun waaniga ku kala garanaya dadka qaraabadeeda iyo kuwa qaraabadeeda aan ahayn waxa ku kala garanaya waa caqligaygii xaaskaygii iyo walaashii waxa ku kala garanaya waa caqligaygii hooyaday iyo taan hooyaday ahayn waxa lagu kala gartaa waa caqligii marka ardaygii muslimkaaga cadda taagoo yidhi caqligaaga adoo aanan arkin ayaad aaminsan tahay ilaaha caqligaaga ku siiyey ee bani aadamka abuuray ee cirka abuuray ee dhulka abuuray ee makhluuqa abuuray seed u garan weyday buu yidhi seed u garan weyday ood aayaadka ilaahay ugu garan weyday aayaadkaas caqligaaga maad arkin laakiin calaamaadka caqliga lagu garto waa maxay qofka caqliga qaba waxaa lagu gartaa hooyadii iyo islaanta kaluu kala yaqaannaa xaaskiisii iyo walaashii buu kala yaqaannaa sadiiqiisii iyo cadowgiisuu kala yaqaannaa meesha xun iyo meesha fiican buu kala yaqaannaa qofka caqli iyo garaad aan lahayn walaashii xaaskiisa ma kala yaqaanno waa la xidhxidhaayoo meel baa lagu xidhxidhaa caqliga calaamaadkiisa ayaad ku rumaysa inaad leedahee maxaad u garani weyday haddaba cirkan iyo dhulkan baddan buurahan khalqigan cadceeddan dayaxan habeenka maalinta dhimashada dhalashada wa min aayaatihi alleylu waannahaaru waashamsu waalqamar laa tasjuduu lilshamsi walaa lilqamar wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun wa min aayaatihi alleylu waannahaar wa aayatun lahum alardu almaytatu axyaynaaha wa aayatun lahum alfulku wa aayatun lahum alleylu naslakhu minhu annahaara aayadaha kawniga ee ilaahay awooddiisa lagu garanayo intood garato maxaad ilaahay u garan weyday buu ku yidhi ninkii macallimka ahaa halkiibuu ku islaamay dad badanna halkii bay ku islaameen waa ilmo yar inan yar oo aabbihiiyo hooyadii ay ilaahay iyo nebiga bareen oo gurigooga diin lagu soo baray oo guriga xalaqatalbayd loogu soo qabanayey ayaa jawaabtaa ilaahay soo dhex mariyoo nin gaala ku soo arooriyey